بسم الله الرحمن الرحيم intaan u gudbin weerarada iyo duqeybaha isdhaafsadeen Iran iyo Mareykanka waxaynu ku hormaraynaa war weyn oo ka soo yeeray Xuutiyiinta oo ku aadan inaysan gacmaha ka laaban doonin weerar Israa'iil ay ku qaado magaalada Beirut gaar ahaan dhanka koonfureed oo ay ku badan yihiin taageerayaasha Hizbullah hogaamiye sare oo ka tirsan dhaqaaqa Ansarullah ee loo yaqaan Xuutiyiinta ayaa xalay ugu hanjabay in si weyn ay uga qayb qaadan doonaan dagaalka haddii ay sii wado xadgudubyada ka dhanka ah waddanka Lubnaan. Maxamed Al Farax oo ka mid ah xafiiska siyaasadda ee Xuutiyiinta ayaa fariin uu ku daabacay baraha bulshada internetka ee telefishinka Al Masira ee lagu xiriiriyay Xuutiyiinta wuxuu ku yiri xigasho cadowga Israa'iil waa in uu garwaaqsadaa in xadgudub kasta oo uu ka geystay Lubnaan looga jawaabi doono si adag in ciidamadiisa ku sugan koonfurtan ay ahaan doonaan kuwa maalin kasta la beegsan doono ilaa ay joojiyaan ku xadgudubka ay wadaan isla markaasna xoojin kasta oo weerar waxay qaadan kartaa jawaab ku habboon oo dhammaystiran. Al-Farax ayaa tibaaxay in mid ka mid ah sababaha ku dhiirigeliya Israa'iil in ay sii wado weerarada ay tahay in 15 bilood ay duqeynaysay Lubnaan iyadoo aan la kulmin wax jawaab ah. Wixii ugu dambeeyay Israa'iil waxay xoojisay duqeymaha ay ka wado waddanka Lubnaan. Iran ayaa dhankeeda 3 maalmood ka hor waxay sheegtay in haddii Israa'iil ay duqeyso koonfurta magaalada Beirut gaar ahaan xaafadaha Daahiya ee Shiicadu ay ku badan tahay in ay duqeyn doonto waqooyiga Israa'iil. hagaag xaalka bariga dhexe waa bariga dhexe duqeymo culusna waa ay dhaceen waxaynu eegaynaa wararkii ugu dambeeyay ee amuurtan gaar ahaan war ka soo yaray taliska ciidanka ilaalada kacaanka islaamiga ee Iran oo la xiriira duqeymo ay isweydaarsadeen saacadihii la soo dhaafay. Mareykanka warbaahinta Iran ayaa war ay soo saartay waxay ku sheegtay in ay socdaan jawaabo laga bixinayo weerar Mareykanku uu ku soo qaaday waddanka Iran. Ciidanka ilaalada kacaanka islaamiga ee magacooda loo soo gaabiyo IRGC ayaa daboolka ka qaaday inay sawaariikh iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ku beegsadeen saldhigga military oo Mareykanku uu leeyahay iyo xarunta taliska ciidanka badda ee shanaad ee Mareykanku uu ku leeyahay Bahrain, taas oo ay ku sheegeen waa weerarkaasi in uu jawaab u ahaa duqeyn Washington ay ku beegsatay munaarad isgaarsiineed oo ku taal jasiiradda Qasham. Ciidanka IRGC ayaa bayaankooda ku sheegaya in weerarku uu ahaa cashar loo dirayo sida bayaanka lagu yiri cadowga kadib markii militariga Mareykanka uu bartilmaameedsaday markab shidaal oo Iran ay leedahay meel u dhow marinka Hormuz, taasi oo sababtay dhaawac culus oo soo gaaray qolka matoorka markabka. ciidamada IRGC ayaa hanjabaad u diray ciidamada Mareykanka iyagoo ka digay in xasilooni darrada laga abuurayo marinka Hormuz ay Washington ugu kici doonto qiimo aad u culus. Goorsii horeysay wakaaladda wararka Bahir ee Iran laga leeyahay ayaa waxay ka soo xigatay ciidamada ilaalada kacaanka islaamiga oo sheegay in qarax laga maqlay jasiiradda Qasham oo ku taal hareeraha marinka Hormuz. dhinaca kale Mareykanka ayaa war soo saaray arrintan la xiriira. Taliska dhexe ciidanka Mareykanka CENTCOM ayaa sheegay in sheegashada IRGC ee ah in la beegsaday xarunta ciidamada badda ee shanaad ee Bahrain iyo saldhigooda gobolka qaar ka mid ah ay tahay arrintaasi mid aan sax ahayn. Taliska ayaa waxay sheegeen inay fuliyeen waxay ugu yeereen duqeymo isdifaac ah oo lagu beegsaday xarun ciidamada Iran ay maamulaan oo ku taal jasiiradda Qasham. waxay sidoo kale sheegeen inay si guul leh u fashiliyeen weerar gantaalo balastiga loo adeegsaday iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo Iran ay ka fulisay bariga dhexe sida hadalka loo dhigay. Taliska ciidanka Mareykanka ayaa waxa uu sheegay inay soo rideen 3 dayuuradood oo ah kuwa duuliyaha aan lahayn oo Iran ay leedahay oo ku wajahna markab rayid oo ku sugnaa biyaha caalamiga ah. ay ku dareen inaysan jirin wax khasaare nafeed ah oo soo gaaray ciidanka Mareykanka taasi oo ku aadan weerarada Iran. waxay cadeeyeen in Mareykanku ay feejigan yihiin ciidankoodana ay diyaar u yihiin inay iska difaacaan sida hadalka loo dhigay gardarro kasta oo Iran ka timaada. dhanka Kuwait
hay-adda duulista rayidka ee waddanka Kuwait ayaa waxay sheegtay in dhismo ku yaal garoonka diyuuradaha Kuwait lagu bartilmaameedsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaallo Iiraan laga leeyahay isla markaasna la howlgeliyey qorshaha xaaladda degdega ah. hay-addu waxay ku dhawaaqday in la hakiyey duulimaadyadii ka bixi jiray garoonka Kuwait halka qaar kalena loo wareejiyey garoomo kale ilaa iyo amar dambe. waxay sheegtay hay-addu in beegsiga garoonka uu sababay dhaawacyo iyo burbur xooggan oo gaaray dhowr qaybood oo ka mid ah xarunta garoonkaasi oo ku yaal. ciidanka Kuwait ayaa xaqiijiyay inay si dhow ula soconayaan xaaladda iyagoo la kaashanaya hay-adaha ay qusayso. dhinaca kale ciidanka difaaca waddanka Bahrain waxay sheegeen inay soo rideen 3 gantaal oo Iiraan ay leedahay iyo diyaarado drones ah oo sida hadalka loo dhigay beegsanayay goobo dad rayid ah ay degan yihiin. Mareykanka aynu ku laabanay xildhibaan Thomas Masai oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ee uu hogaamiyo madaxweyne Trump ayaa dheelay taageerada dhaqaale ee joogtada ah ee Washington ay siinayso Israa'iil isagoo waxba aan ka soo qaadin wararka sheegaya khilaaf xooggan inuu ka dhex aloosan yahay Trump iyo Netanyahu wuxuuna ku tilmaamay hadalla aanay waxba ka jirin. xildhibaan Thomas ayaa qoraal ku daabacay baraha bulshada ee internetka waxa uu ku yiri waxaasi oo dhan waa iska hadal kaliya haddii hal bil oo kaliya la hakiyo gargaarka dibadda ee la siiyo Israa'iil waxay joojin doontaa duqeymaha ay ku hayso deriskeeda. nabad degdeg ahna waa la heli doonaa. Mareykanka Hormuusna waa la furi karaa. qiimaha shidaalkuna wuxuu hoos uga dhici karaa $2 halkii galaan. waxa intaa uu ku daray Israa'iil waxay ahayd weli tahay dalka ugu weyn ee ka faa'iideysta gargaarka laga bixiyo canshuur bixiyaasha Mareykanka. waaye arrinta la yaab kale waxay noqotay oo saakay dhacday inkastoo duqeymahan xalay galikii dambe ay dhaceen ilaa saaki waa berigii waddanka Bahrain markii la duqeeyay saldhigyada Mareykanka dadkii shacabka waxay ku duubayaan mobile qaarkood waa farxayaanba. arrinta la yaab kale dagaalkii hore xitaa sidoo kale way dhacday. Bahrain wayna la soconaa waxaa ku badan shucuubta shiicada oo ka tira badan sunniyiinta boqortooyada imika ka taliya. haddaba muuqaalkan waxaan ku tusaynaa dad u dabaaldegaya waddankooda in la soo weeraray. aynu daawano muuqaalkan. arrinta marka waxay noqotay arrin la yaab leh. dadkan inkastoo waddankooda uu yahay meesha la soo weeraraya laakiin haddana waxay aaminsan yihiin saldhigyadan Mareykanka ee meesha ku yaal inaysan ahayn wax iyaga dantooda ah inkastoo ay ka soo horjeedaan boqortooyada. dad badan runtii waa la xiray dagaalkii hore. dowladda waddanka Iiraan ayaa waxay sheegtay in ay qaban doonto aas qaran oo socon doona 3 maalmood oo loo samaynayo hogaamiyihii sare ee dalkaasi Ayatollah Ali Khamenei kaas oo lagu dilay duqeymo ay fuliyeen Mareykanka iyo Israa'iil maalintii ugu horeysay ee dagaalkii bariga dhexe 40 maalmood ka socday iyadoo taariikhda rasmiga ah ee munaasabadana la shaacin doono waqti dambe. Ali Khamenei oo dalkaasi hogaaminayay ku dhawaad 37 sano ayaa lagu dilay gurigiisa oo ku yaal bartamaha magaalada Tehran 28kii bishii February. aaska qaran oo markii hore la qorsheeyay 4tii bishii Maarch ayaa dib loo dhigay sabab la xiriira dagaalka oo socday xilligaasi. waxaa la qorsheynayaa aas dadweyne oo socon doona 3 maalmood ayuu ku dhawaaqay ku-xigeenka duqa magaalada Tehran Mohammed Amin Tavakalzadeh sida ay baahisay warbaahinta dowladda Iiraan. Mohammed Amin ma uusan caddayn waqtiga saxda ah ee aaska la qaban doono balse wuxuu sheegay inay suurtagal tahay inuu dhaco bilowga bisha Muharram oo ah bisha ugu horeysa ee taariikhda islaamka oo ku beegan bisha June ee aynu ku jirno. waxaa intaasi uu ku daray in munaasabadaha aaska lagu qaban doono magaalada Tehran iyo sidoo kale magaalooyinka Qom iyo Mashhad halkaasi oo la filayo in lagu aaso Ali Khamenei. Tehran gudaheeda munaasabada ayaa socon doonta ugu yaraan 24 saacadood ayuu yiri Mohammed Amin isagoo xusay in la filayo inay ka qayb galaan ilaa iyo 20 milyan oo qof oo reer Iiraan ah iyo dad kale oo ka kala imaanaya meelo kala duwan oo caalamka ka mid ah.